ciidanka asluubta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid ka mid ah ciidamada rasmiga ah ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidanka asluubtu waxa uu u idman yahay una xil saaran yahay ilaalinta xabsiyada iyo dhaqan celinta maxaabiista xukuman. sidoo kale waxa uu door weyn ku leeyahay gargaarka iyo daryeelka ka socda xarumaha carruurta agoomaha. muddooyinkii u dambeeyay ciidanka asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku tallaabsaday horumar muuqda. ciidanka asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku tallaabsaday horumar muuqda oo la taaban karo oo bogga taariikhda maguuraanka u gali doona sida hirgelinta dugsi u gaar ah ciidanka asluubta oo cusub waxaana uu dib haweyn iyo dhismayaal cusub lagu soo kordhiyay xabsiyada dalka oo dhan kuna fidsan guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhanka kale waxa uu taliyay xudun ku soo kordhiyay ciidanka asluubta gaadiidka kala duwan sida cagafyo, booyado, basas iyo gaadiidka gaashaaman ee maxaabiista lagu qaado oo adduun badan lagu soo iibiyay. haddaynu ku horeyno dhanka dugsiga tababarka ee Generaal Xudun oo dhismihiisu hadda gabagaba ku dhow yahay soona maray marxalado kala duwan iyo duruufo kala durugsan iyadoo intii aan la dhisin dhismaha iyo yegleelka dugsigan lagu tababaray dufcado kala duwan oo hadda ku jira waajibaadkooda shaqo ee qaran. taliyaha hoggaanka dhismaha ee ciidanka asluubta gaashaanle dhexe Daahir Mawlid ayaa ka warbixinaya halka ay marayso hawsha dhismaha dugsigaasi oo uu gacanta ku hayo. aad iyo aad baan horta ku mahadnaqaynaa bilowgii baad nala kulanteen hawsha bilowgeedina waxa weeye marka aasaarta u horeysa dadku arkaan baa bilow leeyna abaabulka hore iyo dhagax dhigga iyo dhaqdhaqaajinta hore dadku waxay u qaataan waxaan soconayn laakiin maanta waxaa la arkayaa muuqanaysana himiladii iyo hawshii taliyaheenu inoo horseeday kuna magacaabay halkaa magaciisii iyo mafaca uu maanta keenayaana ay isku muuqan doonaan. mayskii hore wuxuu ahaa waababka iyo ciidankii hore keenistiisii aqalkaas ayaa ku xigay fayskii labaad. fayskii saddexaadna waa deyrka maanta la dhisayo ee aanu hadda kaabadii u horreysay iyo hawshii u horreysay qabanay biyaha iyo hawsha ku socotana aad arkaysaan sida aanu u dhisnay iyo sida kaabaduhu u dhigmayaana aad arkaysaan. taasi waxa weeye waa ilaahay mahadii aad iyo aadna waxa ugu mudan oo ugu magac weyn oo aad iyo aad ugu mahadnaqayna taliyaha iyaga Maxamed Xudun. idina waa arkaysaan hawlqabadka iyo halkay maanta ka bilaabanayso banaanka cad weyn. maalintii horena waa tii aanu idiin sheegnayo dee banaankaasay ahayd. himiladiisii maanta waxa ay hirgashay intuu aqalkii dhiso waafkii ka gudbay inuu deyrkiina xayndaabkiisii aanu taa aanu u qoynayna si aanu u xidhi lahayn ay noqoto. taasi waxa weeye waa waxqabadka koowaad labaad saddexaad. taliskana waa ogtiin waxqabadkiisa oo barkadihii iyo booyadihii iyo cagaftii wajaale la geeyay labadii cagaf iyo haruurka ka baxay ee labada bilood la goyn kari lahayd waa waxqabadadiisii. sidaa awgeed waxa weeyaan walaahayow halkaa waxaad arkaysaan nimcada iyo nishaadada iyo barwaaqada. annaguna heegan iyo hawlqabad waxaanu u nahay inaanu is-ag taagno tilmaan iyo talaba ku kordhino waxqabadkayagii muujinno mafaca xooggayaga iyo xaal maskaxdayada wixii ku jiraba aanu tuujinno oo sidaa ku garab gallo Somalilandna ay aragto waxqabadka ciidanka asluubta taliyaheedu u horseeday diyaarna uu ugu yahay waxqabadkeediina kaa muuqda yahay midhadhalkeediina difcadaha horena ka soo baxeen maantana ay halkaa rigada iyo hawsha ugu jiraan ee tacabkeedii ka hayeen. dhankiisana taliyaha ciidanka asluubta Somaliland Sareeye Guuta Maxamed Cismaan Ibraahin Xudun waxa uu ka warbixinayaa agabka kale ee laga maarmaanka ah dhismaha dugsigaasi oo ku fadhiya masaafo ballaaran oo sidoo kale ay qayb ka tahay kuliyad ay ka soo bixi doonaan saraakiisha ciidanka asluubtu.
siligii lagu wareejin lahaa maxaan ku dhahdaa iskuulka ama dugsiga ama kuleeyada lagu wareejin lahaa weeye waa kii duubnaa ee lagu wareejin lahaa tiirarkii shubkiina waa kuwana loo sameynaya markaas waxaa lagu wareejinayaa waa dhul ballaaran oo yaraan 1 kiiloomitir oo square lagu soo wareejinaya qalabkiina waxba kama dhinna waa u dhan yahay iskan un baan markii la dhammaystiro waa lagu xidhaya lagu wareejinaya sidaa kuu sheegay halkan waa halkii dabada u qabsanaysay taagmayey كان واتار كي ملح وكما لو سمي كي هدينا كل وقادي وكنا ولو سمي ولو سمي هادو توكيتو منابا تشك كسار كون marka la taago sida loo wareejiyo hadana kii tuumnaaye taliyaha asluubtu waxa kale oo uu sharaxaad ka bixinayaa tirada dufcadaha dugsigan ka qalin jabiyay iyo deegaanada ay ka hawlgalaan ciidankii hore ee la qori jiray ama sida loo qori jiray waxa la dugsi lama geeynin dugsi tababar ma ilahay waa la qori jiray dareyska loo gelin jiray marka dareyska loo geliyo marka xabsiga ilaali baa loo qori jiray ayaanu iyagoon la barin tababarka qofeed ee ciidanka askariga ugu horeeya la baro waxa weeye waa tababarka istirsoonka ee kow laba logde ee la sheegay dishibliinka la tusayo la barayo sharciyada la barayo marka sharciyada la baro ee socodka la baro ee sidoo wax u salaamaya la baro ee sidoo mataqaana u gaadiya la baro markaas ayaa shaqo loo diraaba ee uu tagaa maxaan ku idhahdaa tababarkii ciidanka uu dhamaysto markaas shaqo askari loo diraa taliya muddadii aad ahayd taliyaha guud ee ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland ee u kuliyadii oo difacadii insaad ay cunaysaa waa difacadii labaad ee ka baxda waa difacadii saddexaad oo ka baxda weeyaan dii saddexaad weeye tani ciidanka xabsiyada jooga waxa sameeyay maadaama tababar la barin sanad laba xabsi baa la keenaa tababarka la baraa kuwa cusubna ee qornana waxay waa la baraa imika 3 difaadood baa ya soo galay waxaan dhamaynay Hargeysa xabsiga Hargeysa waa dhamaynay tababarka maxaan ku dhadaa taliskii waa soo qaadnay burco ciidan baan ka keenay oo tababar ku jira laascaano ciidan baa ku jira oo tababarka ku jira caynabo ciidan baan ka soo qaadno tababarka ku jira markay dhamaystaan intaasna nin walba meeshiisa lagu celinaya lagu celiyaa haddana waxa soo bedelaya kuwa kale ee ka soo qaaday oo tababarka qaadan doona sidaasay xabsiyadu isku xigi doonaan oo tababarka u qaadan doonaan dhamaan waxaan ku rajaynaynaa inaan intaan joogo aan tababarka xabsiyada la soo baro nin walba halkan soo maro taliyuhu sidoo noo sheegay ciidanka uu si uu nidaamka qoraalkiisa waxa weeyaan socodkiisa wax badan baa laga bedelay si uu anshaxooda iyo asluubkooda iyo ilaalinta hawlaha ay u xilsaaran yihiin qarankan ay u gutaan marka waxaweyaan sidaan arkayno ciidan kasta oo kamid ah ciidamada xabsiyada kala duwan ee dalka ku yaala waxba kaga jira ciidamadan aynu arkayno waxaweyaan isla mar ahaantaasna ciidan kasta marka uu tababarka dhamaysto wuxuu noqonayaa xiriir uu ka yimid si waxaweyaan uu shaqadiisa u guto aqoontii iyo halka ka barteena ugu anfaco ummadiisa iyo dadka uu ilaalinaya inta uu saaran yahay kaliya su'aasha aan weydiinayna waxay tahay sidaan halkan arkayno xilligii hore ma ilahayn ciidankaas loo meel tababar ay ku qaataan laakiin cashiyaas ku qaadan jireen hadda waxaan arkaynaa in waxaweyaan dhismayaal iyo hooy iyo wax walba ay heleen oo ay leeyihiin maxaa kale oo iyaga soo kordhisay ummadda sheekay kartaa inta xilkaas inta waxaan soo kordhinay kow waxa weeye waxaan xabsiga waan gelaynaa waxa weeyaan maxaabiistii tababarkii waxay ku jiraan nijaaradii waxay ku jiraan mataqaanaa walankii waxay ku jiraan dawaarkii oo arqaankii ay samaynayaan waxaan tegi doonaa hadda waan baasaynaa Hargeysa waxaan tegaynaa haddana beertii oo mataqaanaa la gurayo oo mataqaanaa iyaa tegaynaa sanadkan laakiin intaan hadda noo soo kordhinay waxa weeye dugsigaas oo mataqaanaa noo socdo dhismihiisii oo insha Allahu ilaa 3 bilood 4 bilood rabno inaan ku dhamayno deyrka haddii Ilaahay idmo oo mar kale aan soo gali doono
markaan intaa xafidno oon ka xafidno dayrkaan ka xafidno xoolihii iyo waxa soo galayaan ka xafidno insha allah waxaan soo kordhin doonaa haddana insha allah waa kordhinaynaa inta ku dayn mayno waxa weeyaan ciidankuna waa soo kordhayaa oo weli waa soo socda qorinkiis waa socda oo waa soo kordhayaa waxaan kordhinaynaa guryihii baan kordhinaynaa haddii la idmo taliyo wuxuu noo sheegay wax badan oo qabtay qorshayaashiisana qaar ka mid ah ayuu noo soo qadimay laakiin qorshayaashaas u faahfaahsan waxyaabaha aad qaban doontaan sanadkan in hadda sii guda galayno ciidankan oo qaban doontaan waxa weeyaan sida dhismahan iyaga u qabateen wax badan iyaga u qabateen maxaa waxa weeyaan kaloo iyagana oo qaban doontaan anaga muhiimka waxaa noogu muhiimsan horta anina adkayno tababarkooda ciidanka tababarka ciidanka inaan barno ayaa horta noogu muhiimsan kow ka labaad qodobka labaadna waxa weeyaan inaan u dhammaystirno tashiilaadkii wixii hadday guryihii ay tahay hadday masquulihii tahay hadday meeshii ay tahay maxaa ahayd lagu karsanayay jikada raashinka lagu karinayay hadday tahay kitchenkii hadday tahay taliyo ciidanka waxaan ku helaa biyaha waxaan ku helaa waxa weeye ceel halkaasu ka helaa waa taa qasamadu socda oo ciidanku leeyahay ciidanka iska leh waa ceel halkaas weligiiba taa anugu odhan maayo ku faani maaye waa mid iga horeyso ingiriiskii baa sameeyey ceelkii ingiriisku noo sameeyey ayaa soomaalidiina sii dayactiray kii unbaa haddana noo socdo oo biyooga noo socdo maasha allah ay noo socdaan mishiin baana noo soo saara ciidanka sidoo kale booyada ayaad u iibiseen sida booyad baan u iibiyey taliska ciidanka asluubtaan booyad u iibiyey waxaan u sameeyey xitaa talisku ma lahayn waa hore idinku sheegay meel lagu sujoodo xitaa iska dhaaf masquul iska daayay biyo yar oo lagu sujoodo ma lahayn waxaan u sameeyey masquulihii xamaamkii 8 masquulood oo xamaam sameeyey ceelkii biyaha laga dhaasanayay loogu shubayay oo 200 foosa qaada ayse booyadii waan u iibiyey marka waxay weli waa inoo socotaa weli waxtarkooda beertii hadda waa tagi doonaa sanadkan beertii waa ku badnay raashin badan baa nooga soo baxay caleen badan baa soo baxay hadda abaaraha aan ku haddana waxa weeyaan waa socdaa weli caleentii way taallaa waxaan tala galaynaa inay wixii baahiya mataqaanaa haddana lanaga codsado inaan haddana dadka siino korneyl axmed yuusuf timajeli taliyaha dugsigaasi tababarka ee asluubta ee jenaraal xudhuun ee magaalada mandheera ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey ujeedooyinka laga leeyahay tababaridda ciidamada asluubta iyo heerka ay ku habboon tahay in la gaadhsiiyo tababaridooda saddex difcadood hore way ka baxeen dugsiga tanna waa difcadii afraad weeyaan difcadii afraad weeyaan dugsigu weli waa qabiil waxaa lagu hayaa dhisne markii hore waxaa laga soo bilaabay in lagu seexdo magaranaysaa dugsiga meeshii aad soo aragteenee halwada ahayd ee bannaankii ciidanku saasuu diyaar ugu ahaa ciidankeed markuu ka baxo iminka ee uu tababarkiisa dhammaysto howlahoodii caadiga ahaa ee shaqadii gaarka ahayd ee xabsiyada si ay u hantaan shuruucdiisii iyo tababarkiisii iyo magaranaysa askarinimadiisii si loo dhiso ayaa horta ciidanka halkan loo keenaya marka difcadu waliba dhammaysato ee imtixaan laga qaadaynu ku hubsano macallimiin xulaho aanu u soo soconayna muxuu gacanta ku qabtaan ayaa dib loogu celiyaa howlahoodii shaqo qoladani iminka way cusub tahay gobollada laga soo qoray ee dharka cadli kuwana waa ciidankii hore xabsiyada ka shaqaynayo waxa weeye kuwana waa ciidankii hore xabsiyada ka shaqaynayay kolkaa waxa weeyaan waa dib baa loo jadiidinayaa shuruucdii ciidanka iyo tababarkii ciidanka ilaa heer commandos yaanu maaragtay ugu talagalsannahay inaanu ku dhaqaajino si ay iskaga difaacaan nimanka muxuu ahaa dib ciidankeeda leeyahay haa nimankan dambiilayaasha ka takoormay bulshada ee bulshada gaar uga soo baxay si ay iskaga difaacaan yaan doonay tababarkooda in ciidanka aad loo dhiso saa loo dhiso marka muxuu ahaa talagalka dugsigu waa caynkaa weeyaan xabsiyada waaweyn ee somalilan waxaa ka hirgalay mashaariicda dhaqan celinta maxaabiista iyo kusoo dabaalidooda bulshada dhexdeeda si marka ay dhammaystaan xabsiyada ay uga mid noqdaan dadweynaha caadiga ah iyadoo xabsiyada dhexdoodana lagu sii bari doono aqoon iyo xirfado farsamo oo ay ku shaqaysan karaan marka ay u dhammaato muddada ay ku xukuman yihiin
mid ka mid ah maxaabiista ku jirta xabsiyada magaalada Mandheera ayaa ka hadlaya waxyaabaha ay barteen ee xabsiyada dhexdiisa kaga shaqeeyaan. أنا أقول لك تدبر سنة دمر كورن ولا شو كداي لكن ممكن ولا شو فايد مواد النوانة دي رئيسه ما لنا لا مركز سيد الرجل يروح كأ سنين حركة إفراء بدل أبريل كينا لوق على دي وانا نجسي داي دولة نوانة ما لنا أسرة نوانة ما لنا أي معلمين marka hore ilaahay baa mahadleh marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Maxamed Axmed Xamuud Siinayo waxa aan leenahay waxay dawladdu noo samaysay horumar iyo hiigsi iyo himilo iyo waxqabad waxay dawladdu ku xisaabtantay jiil waa la helaa adduun waa la helaa laakiin jiil lama helo marka sidii jiilkayga soo saar ku sameyn lahayn ayay nagu samaysay waxqabad farabadan oo ay kamid yihiin alaabtaada arkaysan oo sameynay kabadhada sariiraha fadhiyada hurdada xadhiguna waa tilka la yaman dawlaha bayna naaso dawa biqalm ilaahi jamil baan ku soo galay meesha xirfadan ma noqon markii hore laakiin maanta xirfad noo soo korodhay ayay noqotay xilli roobaadkii sanadkan ee gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa suuragal ka dhigtay in ciidamada asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka faa'iideystaan oo beerahooda ku yaala banka Wajaale waxaana ka soo go'ay dalagyo kala duwan oo ay ugu horeeyaan midhaha galleyda iyo hadhuudhka iyadoo caleentiisana ay kaga qayb qaateen gurmadkii abaaraha ee gobolada bariga dalka Soomaaliland oo wax badan ay ka tartay waa kan mar kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland waxaad arkaysaan wixii aan tacabnay weeyaan ولينا هذا نوال صوفنا يا بدوة هروك وحي وحاج جيفا أو دن وحكي على ملا كاسو كلا كي على وحاج جيفا ولي أنا كرلوتو ساسو كلا لوكلين أو كرلوتو وحوي وكي هروك بكي على وكاوض جيفا أنت إن لاقي اللي بدي بعصاب حيسا أو هرسن أو يمانيسا هل كان وكماتينا والو لقريا واحد هالكي اللي قصوا قرية هنا هل أنت نويت ولا وجهه تجينا ولا كويني ولي واحد ويا واسرع ولي كروب كاي نغير كراي هذا روح ولا كرنتي بنجاها كتي لكن هذه كرنت هيلا لما بقول بس والله متصور كتلي يستوكل وحكت فايدة حوله يدك سوق كده وقفت عليه حوله وهي مطعنا حاف يا والله بس عليه خيرات كده هذا واحد وثان دينا عاشي تجيه وين أنا دافين هذا وحويا حاجة يتوقي وبحر شيء عبارة على تينا أنت اللي بروح الري ووقتين بري يعني حويا كذا قاسين قلت لك عبارة هذا كان يسطن بابور taliyaha ciidanka asluubta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Cismaan Ibraahim Xuruun isaga oo kaashanaya saraakiisha iyo ciidanka kala gadisan ee asluubta waxa uu ku guuleystay inuu aasaaso dugsi tababar oo casri ah oo u gaara ciidanka asluubta isla markaasina leh agabkii iyo adeegii akaadamiyad ciidan oo dhameystiran iyada oo markii hore ciidanka asluubta ee Soomaaliland uu tababarka ku qaadan jiray cooshadaha iyo waababka idinka muuqda shaashada oo aan iska celin karin cadceedda dhaxanta iyo dhibicda roobka waxaa sidoo kale lagu guuleystay in dugsiga lagu wareejiyo loona dhiso deyr ama xayndaab adag oo loogu talagalay in kor loogu qaado sugnaanta ammaanka ee akaadamiyadda ciidanka asluubta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Generaal Xuruun iyadoo aanay suuragal ahayn in ay galaan cid aan ogolaanshiyo gelitaan haysan
عسومت بقركيو وينهل عسومت بقركيو وينهل بدنا dad haysto aan garanin biligiyo bararaha la siiyo oy badana dad haysto aan garanin biligiyo bararaha la siiyo dad haysto aan garanin biligiyo bararaha la siiyo oy badana dad haysto aan garanin biligiyo bararaha la siiyo
subage